kulankan oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta qurba joogta iyo qaybaha kala duwan ee beesha reer Fiqi ee beelaha Banaadiriga ayaa waxay uga hadleen boob lagu hayo kursigooda. beesha ayaa shaacisay in markaasi boob iyo faragelin lagu hayo kursiga baarlamaanka golaha shacabka ay ku leeyihiin ee Hoob 34 waxaana ay sheegeen in kursigaasi loo boobayo safiirka dalka Pakistan ee dawladda Soomaaliya. waxaana qaar ka mid ah dhalinyarada iyo siyaasiyiinta halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka ay baaq u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in aan nahay cabashadaas oo ah sida waayahan dambe soo ifbaxay in leesboobo in awood leesku sheegto taasna awood ilaahay ayaa leh bani aadan malaha oo san ku neefla ah annaga haddii aan nahay culumada beesha culumada aala faqiihi dhowr jeer waan cabanay wax walba waa sameynay cabashadan waa cabashadii ugu dambeysay lianna sababtoo ah waxaa badanaabana soo gaarto in kursigeena aan ku leenahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee naloo sheeganaayo in ma aragtay nalagu lifaaqo kursi kale oo beel kale leedahay taas anaga waxaan ogolaan karna ma aha waxaan yeeli karnana ma aha waxaan yeeli doonana ma aha sare ee wadanka waxaan u sheegaynaa aan ugu digaynaa in nalagu soo hawoonin anaga waxaan nahay hal kursi aan ku leenahay baarlamaanka halka kursi aan leenahay ma u dul qaadanen in cid kalena la dul saaro eebadkeena anaga waxaan ku joognay wadanka waxaan ku joognay in aan ahayn culumadii oo beledka Soomaaliya min raas kabon ilaa raas caseer dadka culumaday maaragtay oo darsiga diinta maaragtay dhammaan maaragtay ahkaamta kulli shariicada islaamka gaarsiiyay maanta talada dalka ama mas'uuliyadda doorashada awoodeeda waxa iska leh bare ministerka ama ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa waayahan dambe soo baxday madaxweynihii hore oo galmudug in uu beeshan kursigooda la doonayo marwadiisa Khadiija Maxamed Al-Maqzuumi Khadiija Maxamed Al-Maqzuumi beel la yaqaano oo sharfoon oo ku dhex sharfoon beelaha Banaadiriga ka soo jeedaa ayadana waa marwo sharfoon way laakiin beesha ay ka soo jeedo iyo beeshan isku xuquuq maahan culimadoodan nahay ayaguna beeshoodana waa ictiraafsan yihiin annagana waa ictiraafsanna mudane ra'iisul wasaare waxaan maartay ii sheeg oo sidoo kale kugu biirinaynaa odayaal baa qaabilaysay odayaashii qaabilaysay waxa tuunka weyn sii galiyaan ku sheegaynaa odayaasheena kamid maahayn waxa maartay ii sheeg oo hadalka waxba isku dhufsanaynaa waxa noo xisaaba isku dhufsanaynaa waxa noo soo baxaysa marka waaba warka maartay ii sheeg oo Cabdikariin iyo tiimkiisa ay sheegaan waxba ka jira isleenaa beesha culimada reer Fiqi inta jufa ay ka kooban tahay dhamaantooda kulligoodana waxa isugu keenay halkan inay cabasho yihiin oo ay u cabanayaan kursigooda markeen oo ii sheeg Hoob 34 in ay markeen oo cabasho ugu yihiin in la rabo in la boobo kursi walbo 275 kursi walba inuu ku asteesan yahay qabiil Soomaaliyeed ama jufa Soomaaliyeed beesha markeen oo ay ka dhalatay walaasheen Khadiija Al-Maqzuumi iyo beeshan shaqo isku malahan beeshan reer Fiqi la yiraahdaa isku deegaan ma ahan isku dad ma ahan geelooda ma wada daaqo shaqo isku malahan nabadoonka beesha oo ka cabanaya kursiga la boobaya ayaa sidoo kale baaq diray waxaan ka cabanaynaa waxyaabaha suuqa ku jira in xuquuqeeni loo soo socdo inuu soo socdaan reer Sheekh gabadha la dhahayo Khadiija ayaa rabta Khadiija shakhsiyadeeda ma way maahna qabiilka reer Sheekh ma ahan xuquuqa reer Fiqi ma rabaan xuquuqa reer Fiqi ma rabaan reer Sheekh rajaynina in xuquuqeeni lana dhaafo waxaan la hadaynaa madaxweynaheeni ummadda Soomaaliyeed Farmaajo waxaan la hadaynaa ra'iisul wasaaraheeni Rooble waxaan la hadaynaa guddiga doorashada waxaanu la hadlaynaa guddiga khilaafaadka Rooble waxaan ku ognahay oo had iyo jeerba ku qudbadaysid cadaalad Rooble ha noqdo qolkaadi ficil laga helo ficil haddaydan samaynin aakhir ayaa naga dambeeya
ugu dambeyn kulanka waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed ku saabsanaa waxyaabihii maanta looga hadlay iyo cabashada ay ka qabaan kursigooda oo ay sheegeen in la boobayo. haddii aanu nahay beesha culummada reer Faqay ee ku fadhida kursiga eber 34 waxaa faragelin toos ah nagu haya shakhsiyaad sheeganaya inay ka tirsan yihiin xafiisyada sare ee qaranka kuwaas oo adeegsanaya qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka ee banaadiriga isla markaana u sameeyay warqad aqoonsi ID odayaal been abuur ah oo gacan ku rimisa ujeedadooduna tahay xulista ergo ay doonayaan inay ku boobaan kursiga beesha culummada ah ee reer Faqay. haddaba culummada reer Faqay waxay cambaareynayaan falkan sharci darrada ah ee xambaarsan boobka iyo dhaca kursiga beesha oo ah hoob eber 34 kaas oo salka ku haya miskiin baa miskal fuulo leh. waxaa sidoo kale ayadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka banaadiriga oo la og yahay sida ay ku yimaadeen iyo ujeedada loo keensaday oo ah in la musuqmaasuqo oo la furo kursiga culummada reer Faqay oo kursi lama taabtaan ah. Farxiin Muraad, idaacadda TV-ga Dalsan, magaalada Muqdisho.